markii uu bilaabanayay xilli ciyaareedka haatan socda 2025 waxaa jiray ciyaartooy badan oo qof walba uu filayay inay sii wadan doonaan bandhigooda cajiibka ah ee lagu yaqaanay qaar ka midana runtii taa waa ay sameeyeen balse waxaa jira kuwa kale oo si cad u liita xilli ciyaareedkan sabab kala duwan awgood kuwaas ayaan maanta diiradda saari doonaa kuwanina waa 10 ciyaaryahan oo aan cidina filayn inay heli doonaan xilli ciyaareed sidaas u liita waxaan ka bilaabaynaa Julian Alvarez xidigan reer Argentina sanadihii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican Yurub balse xilli ciyaareedkan waa mid ka mid ah kuwa ugu liita waxa uu ku biiray Atletico de Madrid sanadkii 2024 wuxuuna si degdeg u noqday mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda isagoo xilli ciyaareedkii hore ku dhameystay ka qayb qaadashada 37 gool qof walbana waxa uu filayay xilli ciyaareedkan inuu ka sii fiicnaan doono balse taasi ma dhicin Alvarez bilowgii xilli ciyaareedkan si fiican ayuu ku bilowday isagoo ka qayb qaatay 9 gool 12 kulan ee ugu horeeyay horyaalka La Liga oo ay ku jireen 2 gool oo ka dhaliyay Real Madrid kulankii derbiga laakiin tan iyo bishii November goolal kama uusan dhalin horyaalka Alvarezna ma dhalin hal gool xitaa La Ligaha tan iyo 1 bishii November taasina waxay hadda ka dhigan tahay 12 kulan oo xiriir ah oo uusan gool ka dhalin horyaalka La Liga weeraryahan ahaana dabcan taasi waa mid aad u xun sidoo kale cidina ma filaynin in Kvaratskhelia uu sidan u dhibaatoonayo xilli ciyaareedkan balse runtii taasi waa ay dhacday waa weeraryahan hibo badan oo caadiyan lagu yaqaano inuu abuuro goolal kuwa kalena dhaliyo balse xilli ciyaareedkan taasi si joogta uma samayn karo wuxuu horyaalka liigaanka ka dhaliyay kaliya 4 gool isagoo oo sameeyay 3 caawin taasoo aad ugu hooseysa heerkiisa caadiga ahaa marka aad si qoto dheer u eegtana xaaladdu ay ka sii xun tahay goolkiisii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka ma uusan imaan ilaa iyo bishii November taasoo muujinaysa abaar goolaleed oo dheer xilligan la joogana waxa uu dhaliyay kaliya 2 gool dhammaan tartamada oo dhan sanadka 2026 taasoo cadaynaysa inuu si weyn u liito garabka kale ee dhibaatada ku jiraahay waa Bukayo Saka taasoo runtii aan cidina filaynin weeraryahanka Ingiriiska ahi caadi ahaan waa mid ka mid ah kuwa ugu wax soo saarka badan balse wali lama arag bandhigiisii fiicnaa xilli ciyaareedkan waxa uu Premier League ka dhaliyay kaliya 4 gool oo midkood rigoora tahay goolkiisii ugu dambeeyayna waxa uu ahaa November ilaa iyo haddana Bukayo Saka wax ka badan 12 kulan oo u ciyaaray tartamada oo dhan Arsenal wax gool ma dhalin arrintanina waa mid la yaab leh gaar ahaan maadaama dad badan ay filayaan in Arsenal sanadkan ay ku guuleysanayso horyaalka Premier League Bukayo Saka uu yahay xidigii la filayay inuu kooxda garabka ku qaado balse taasi ma dhicin waxa listigan ku jira sidoo kale 2 ciyaaryahan oo xulka Ingiriiska ah ma garanaysaa cid aan ka hadlayno qaybta commentiga nagula sii wadaag haddii aad saxdana waan isla arki doonaa haddii aadan wali ka mid noqon asxaabteennana soo dhawow si aad u heshid muuqaal cajiiba haddana aanu gudubno Rodrigo waa ciyaaryahan si weyn loo qiimeeyo dad badanina waxay ku tilmaamaan mid heer caalami ah wuxuu yaqaanaa sida loo dhaliyo goolal muhiim ah mararka qaarkood balse xilli ciyaareedkan aad buu u liitaa waxa uu dhaliyay kaliya 3 gool 20 kulan oo u saftay dhammaan tartamada oo dhan Real Madrid xaqiiqdiina heerkiisu aad buu u dhacay ilaa iyo uu jabiyay rikoor aan loo baahnayn isagoo noqday weeraryahanka muddada ugu dheer aan gool u dhalin taariikhda Real Madrid waxa uu xilli ciyaareedkan horyaalka ka dhaliyay 1 gool oo kaliya daqiiqadaha uu ciyaaro oo yaraaday iyo qaab ciyaareedkiisa liitana waxay ka dhigayaan xilli ciyaareedkan mid aad ugu xun cidina ma filan inay taasi dhacdo waxa laga yaabaa in taageerayaal badani ay ka yaabaan in listigan lagu arko Vinicius Junior balse marka loo eego heerkiisa xilli ciyaareedkan waa mid aad u liita waa ciyaaryahan dhowr sano ka hor loo tixgelinayay kan ugu fiican adduunka balse haatan waxa uu leeyahay kaliya 2 gool ku dhawaad 20 kulan ee La Ligaha ugu dambeeyay isaga oo goolal aad u yar dhaliyay dhammaan tartamada oo dhan Real Madrid xilli ciyaareedkan qayb ka mid ah dhibaatadana waxa sababay xiriirkii isaga iyo Xavi Alonso kaasi oo ahaa mid ku dhisan isfaham darro Vini ma uusan ahayn mid faraxsan xilligaasi ciyaartooyda waaweynna waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa qanacsan oo kalsoonida si ay u gaaraan heerka ugu sarreeya kadib markii Alonso la bedelay waxa yimid Arbeloa Vinina waxa uu sameeyay bandhig cajiib ah kulanka AS Monaco ee Champions League isagoo oo dhaliyay gool isla markaana caawiyay 2 kale waxa laga yaabaa in qaab ciyaareedkiisu uu soo hagaago balse ilaa iyo haatan waxa uu ka mid yahay kuwa liita sidan hore u soo sheegnayna waxa listigan ku jira ciyaaryahanno kale oo Ingiriis ah kanina waa Cole Palmer waa xidig muujiyay inuu goolal iyo caawin ka samayn karo meel kaste balse xilli ciyaareedkan aad buu dhibaatoonayaa waxa uu dhaliyay kaliya wax ka yar 5 gool oo aan rigoor ahayn dhammaan tartamada oo dhan taasina aad ayay ugu hooseysaa wixii laga filayay lambar 10ka Chelsea dabcan dhaawacyo ayaa saameeyay balse haddana 4 gool oo kaliya inuu dhaliyo open play-ga waxa loo yaqaano ku dhawaad 20 kulan ma aha wax laga filanayay xidiga tayadan leh oo kamid ah kuwa ugu fiican dunida ciyaaryahanka kale Ingiriiska oo xilli ciyaareedkan aad ka u liita waa Phil Foden xilli ciyaareedkii hore ma uusan fiicnayn dabcan balse qof walba waxa uu filayay inuu dib u soo laaban doono kadib markii kooxda uu ka tagay Kevin De Bruyne waxaana loo arkay inuu haatan noqon doono hogaamiyaha kooxda wuxuu dhaliyay kaliya 1 gool 10 kulan ee ugu horeeyay horyaalka Premier League kadibna waxa uu galay waqti fiican
kulan oo kooban isagoo 6 gool ku dhaliyay 4 kulan tan iyo markaasna dhowr iyo 10 kulan oo xiriir ah gool ma dhalin mid kalena ma caawin xaaladuna waxay gaartay inuu lumiyo booskiisa kooxda koobaad iyadoo laga saaray qaybtii hore ee kulankii Manchester United sidoo kalena aan lagu soo bilaabin kulamadii ugu dambeeyay ee Wolves, Tottenham iyo Liverpool waxaa jira ciyaaryahan kale oo Ingiriis ah balse ka hor inta aanan u gudbin aan ka hadalno Alexander Isak waxa uu ahaa lambar 9kii ugu goolasha badnaa Premier League xil ciyaareedkii hore sidaas darteedna qof walba ayaa filayay inuu qabsan doono horyaalka xil ciyaareedkan gaar ahaan kadib markii uu wareegay Liverpool oo horyaalka difaacanaysa lacag rikoorna lagu iibsaday laakiin wixii aan aragnay waxay ahaayeen wax lama filaana wuxuu dhaliyay kaliya 3 gool dhammaan tartamada oo dhan goolkiisii ugu horeeyay ee Premier League waxa uu yimid November xaqiiqdiina xitaa haddii 10 fursadood lagu siiyo marna ma aadan saadaalin lahayn in xil ciyaareedkiisu uu sidaas noqon doono dhaawacyo iyo diyaar garow la'aan dabcan sababta haddana 3 gool oo kaliya ku dhawaad 20 kulan waxaa loo arkaa mid aan macquul ahayn ciyaaryahan kale oo Swedish ah ayaa si lama filaana listigan ugu soo biiray waana Anthony Elanga wuxuu ciyaareedkii hore ahaa ciyaaryahanka saddexaad ee goolasha ugu badan ka caawiyay Premier League isagoo u ciyaaraya kooxda Nottingham Forest markii uu wareegay Newcastle lacag rikoorna qof walba waxa uu filayay inuu sii wadan doono qaab ciyaareedkiisa fiican laakiin goolkiisii ugu horeeyay waxa uu yimid kulankiisii 32 isagoo oo sameeyay kaliya 1 gool caawin waa wax soo saar aad u liita gaar ahaan ciyaaryahan intaasi oo lacag laga bixiyay Elanga bilowga xil ciyaareedka waxa uu haystay boos joogto ah balse qaab ciyaareedkiisa liita awgiis waxa uu haatan saaxiib la noqday kursiga kaydka waxa lagu soo bilaabay 8 kulan oo kaliya Premier League ugu dambeynna waxaanu ku soo xiraynaa Ebrige Eze hibadiisa lama inkiri karo waxaanu ku soo aragnay Crystal Palace dhowr sano markii uu ku beeray kooxda Arsenal xagaagii dhawaa qof walba waxa uu filayay inuu cirka isku shareeri doono laakiin tani waxay noqotay xil ciyaareedkiisii ugu xumaa marka laga reebo kulankii derbiga waqooyiga London ee uu dhaliyay 3 leyda Eze waxa uu ku dhibaatooday kooxda kulankaasi November dhacayna waxa uu ahaa markii uu dhaliyay goolkiisii ugu dambeeyay taasoo haatan laga joogo dhowr iyo 10 kulan oo uusan gool dhalin waxa intaasi dheer inuusan xitaa ka mid ahayn ciyaartooyda uu tababaruhu jecel yahay isagoo aan 1 kulan oo Premier League ku soo bilaaban sanadkan cusub 2026 markii uu Arsenal ku biiray waxa la filayay inuu noqon doono ciyaaryahanka farqiga sameyn doona balse taasi ma noqon haddaba ma jiraan ciyaartooy kale oo aad la yaabtay bandhigooda liita xil ciyaareedkan magacyadooda nagu reeb qaybta commentiga haddii aad ka heshay muuqaalkana fadlan nagu soo biir waad mahadsantahay